السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسو دوادا يوتيوب كيومو أكرم أصحابي ما أنتو وحبك لإني مودي قبر والعشين وما شاء الله كولومبوس أوهايو دقن أيا عيال كيدا لغا قابتي قبر داس ما شاء الله قبر هورا جرتي قبر داس قبر هورا وحان uguسو هدلين وحي اهيد ما شاء الله إسلام ميشا أيضا أي سومالدي كو قادين oo isla markii meeshii iida waxay ku suubiyeen inay u wada qayliyaan u wada ololeeyaan oo maasha Allah isla markii loo yarada Soomaalida loo wacaa oo isla markii loo doodo oo maaragtay yani ilmihii markii saan loo qaaday laga daba tagay oo la soo celiyay laakiin maanta waxa ka sii daran qofkii ilmihiisa oo newborn baby laga qaatay 1 week asagoo guriga la jooga laga qaatay oo had 6 month cunugeeda jiro oo qof kala haysata oo u soo booqani karin oo u gali karin oo yaani cunugeeda tayeysa way soo arkaysaa way soo noqonaysaa even naagta haysata gurigeeda ma taqaana oo ugu tagayso oo soo salaamaysa taa ma garanaysa just waxa la keenaa meesha ilmaha loo keenaa halkaas ay ku arkaysaa way ka soo tagaysaa except 2 hours basaan loo ogoli in ilmaheed aragtay adduunyo nin noolo maxaa aragta ku laaban qurbaha waan soo doonanay ilaahay qeyrkooda hana sii shartoodan ilaahay geesan naga mariyo hooyo kasto ilma haysato waxa halka ugu dardaarmina please u duceey qof kasto oo walaalka oo dhiboon u soo duceey oo dhibaato haysata waxaad ugu duceysaa ilaahay inuu iyadana dhibaatada ka qaado adigana ka qabto ducadaas waxa laga yaabaa intaas oo muslim ay duceeyaan inay qof ku badbaadiso marka waxaan idin leeyahay please gabadha oo soo duceysta bal gabadhan walaasheen dhibaatada ku dhacaysa bal aan isla daawano idinkuna u duceeyay gabadha insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دي ملك استجوبتان سودو هذا ما ودعيني سال إذنكم ودعية قبضان الصومالية ودعية إذنكم ودعية قبضي هوري هدي لا يكون مجا قبضان ويل كذي بالغ قاتي أسبوعي كواد بودعي هوي قبضي هوري ودعية قبضان ودعية يا قبضها الصومالية الله يدين قرقار خير الله يسير hooyooyinkii Soomaaliyeed oo ilmaysan gabadhan Soomaaliyeed akhyaarta sharafta leh meel kasto dunida ay caalamka ka joogtaan oo waxa la dhahaa Samsam Jaamac waa gabar ku nool dalkaasi Mareykanka magaalada Columbus gaar ahaan gobolkaasi Ohio gabadhan waxay dhashay wiil 6 bilood ka hor usbuucii koowaad iyadoo isbitaalka ku jirta ayaa ilmaheedii laga qaatay waxa iminka ay booqataa ilmaheeda ayaa loo ogol yahay oo kaliya inay booqato سلعة يسحرير تقربها كشرة سمسم جامع ويسكدب ورقتا يدا أوباهن هيل يهو يدا أوباهن وحو قرقارة يدا أوباهن قرين يلاير يدا أوباهن وحاوية يدا أوباهن شقو وقبر صوماليد أو كضي عن قربها سمسم جامع وقبر صوماليد أو المهدي لقاقاتي اللح بلود كور أسبوعي كواد مركا المهدي ودسي ayaa laga qaatay wiilkeedii ada sawirkiisa la tus wiilkaaga hore Samsam Jaamac waa gabar Soomaaliyeed oo labaad oo kale oo ilmaheedii laga qaatay 6 bilood hooyada tan waxa ilmaheedii laga qaatay usbuucii koowaad markuu isbitaalka ku dhashay sariirta ayaa laga qaatay waxa haysata Children's Service of Columbus Ohio waxa laga yaabaa in qoys la siiyay iminka waxa loo ogol yahay booqasho kaliya 2 saacadood warkaas iyo war dheeraad ah iyada inoo haysa فضلاً جرسية عالمك أو قرعنك قربها كويس تقبلها الصومالية لو ذاك إلهي با أمقا عدك السكو أو أمقا ما أي جرتو وأكا صور كويل كذا إيد بدر قرعو تتأذر أكا ويل كذا ولا ليال وكاس وخميستي قالها هست صومالير يا أيها هست وادهليست إن شاء الله وادهليست أذر واللايف أدر قال ابن عبدي واللايف وكاس ويلكاس ولا قاتي خيارتا شرفت له wuxuu ku jiraa gacanta dad aan muslimiin ahayn
wuxuu ku jiraa gacanta dadaana shahaadan wuxuu ku jiraa dad caabudaya saliibka iyo krooska waa wiilkaas muslimka oo gaalo ay ku rabaynayso oo ay nuujinayso naaska gaalnimada ilaahay baa u maqan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dayacan iyo carruurta Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun iminka waxaan wareysanaynaa qisada tan naxdinta leh ee ku dhacday gabadhan dhalinyarada ee Soomaaliyeed waa Samsam Jaamac oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus Samsam walaalay soo dhawow magacaaga noo sheeg walaalay Samsam Jaamac Ali Samsam Khaliif Jaamac waan ogahay in magaalada Gaalkacyo koonfurteeda inaad ka timid laakiin naynaasti aabe ma noo sheegi kartaa Khaliif Jaamac shabaw aan soma waan ma sha Allah Allahu naxariisto hooya Khaliif Jaamac Shabel oo deegaan ahaan ka soo jeeda koonfurta magaalada Gaalkacyo waa baraxlay sida aad u taqaanaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto gabdhaheena Soomaaliyeed qabiil ma lahan qoys ma lahan gooniya waa Soomaali weyn qabiil iyo qoys aan dhibkii gaarin ma jiro qabqabalayaalka caaway nabadda noo diidan ee magaalada Muqdisho ku sugan kama war hayaan Samsam Jaamac oo ku rafaadsan qurbaha oo qaxooti ku ah qurbaha oo carruurteedii caawa naas gaalnimo ah la nuujinayo akhyaarta sharafta lahayn waxaan idinka codsanayaa inaan iska dayno qiiro jabaanka aan maala yacniga lahayn meel hoo u baahan hadal lagama keeno gabadha teleefankoodu wuxuu ku saaran yahay shaashadda iyo iskriinka ayuu ku saaran yahay waxay u baahan tahay guri waxay u baahan tahay nolol waxay u baahan tahay naxariis waxay u baahan tahay masaariif waxay u baahan tahay nin dhaqda waxay u baahan tahay lawyer waxay u baahan tahay ciid garab gasha oo garab istaagta aaway culumadii aaway shacabkii aaway ganacsatadii aaway siyaasigii aaway howlgaamiyaalkii qabiilku meeya Samsam waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed oo u baahan gargaar iyo hiil iyo hooyo iyo hooba u baahan magacaaga ku cil walaalle barasho wanaagsan see bay ku dhacday horta ninka ka dhalay carruurta magaciisa Ali Nuur iyo beelahaana waxa tiri waa beesha ogaadeen ma sha Allah okay walaashay barakallahu fiik ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad heshid ilmahaagii see ku dhacay waxa kan see lagaaga qaatay ma waxaan u santay baa lagu yiri ma waxa lagu yiri ya maxay ku dhaheen daawo inaad qaatid runtu waa fiicanta adar fiiri adar day adar lagama xishoodo xaq ma garad fiiri aniga marbar baan anoo dhanba si noqdaa waddankan waa lagu wareeraa ma garad ceeb maaha dadkaaga ka xishoon fiiri may qof ku hayad u baahanta waan kuu keenaynaa insha allahu tacaala waana kuu soo celinaynaa ilaahay idankiis adar gacalis hawalwelin insha allah waan u istaagaynaa arrinta tan may maqlaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala loo yaro jaaliyad culamaa udiin raggii baan noolayn raggii baa waxay fadhiyaan meelaha farku dirarkay fadhiyaan kama war hayaan dadka silcaya Khaliif Samsam Khaliif Jaamac Shabel walaasheen waa tana hadii la ku idmaayo marka hadalka waa soo koobaynaa gabadha waxa la yiri daawooyin bay qaadataa any kind oo daawooyinka ay yihiinba nooca ay yihiinba ana wadartaan yani dhaqaatiir manihin laakiin kolba wax dhiigeeda galay ama jirkeeda galay ayaa lagu haystaa sida awgeed ilmihii gaala ayaa haysata waxay u baahan tahay in ilmahaas la soo qaado ilmahaas marka la soo qaadane loogu wareejiyo hadii la ku idmaayo qof Soomaali ah oo hadii la ku idmaayo kafaalo qaada ilmahaas waa mid aan leenahay Soomaalidu ma lahan foster parenting ma lahan cid u helisa ma lahan iska dhaafadar macana ma lahan foster ma lahan cid jaaliyadaha kale way leeyihiin marka ilmahooda la qaato qof mas'uul ka noqda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun noo sheeg marka goormu ilmuhu dhashay bishii August last year 20 last year ayuu dhashay xageeb ku dhashay starkeeb ku dhashay waa midka ku yaala wadada Cleveland okay yaa kula joogay markii uu ku dhashay ilmuhu ya
gabar ay la joogto oo caawinaysa muslim gabar baa ku caawinaysay ilmihii marka isbitaalka meeqaad ku jirto isbitaalka 5 beri aan ku jiray haye marka maanta la xad ka soo baxnaba guriga soo dabagalan guriga daba imaadeen wiiga camal ay qabtay wiiga guriga ku qaatay اسبوع baa lagu qabtay اسبوعaas marka waxay diyaarinayeen report iyo si laga qaadan lahaa iyo ya maxkamad baa la aaday xasan dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda waa gudoomiyihii jaaliyadda oo taagnaa maalintii dhowta halka kan yani marka dhibku dhaco yani meel walba uu taagan yahay xasan dheere tubiyaana sawti anu ma ogeyn inuu tagay qofka waa loo qiraa marka khayrka waa loo qiraa xasan dheere hawl fiican buu qabtaa نعم دليردي كلا يجاليدي كلا وحبي قبطان إلا مدوبا لو بهاي أو كل جن أنا مدودو أو كم قدومنا قبيل كي وح كان رجع الصومالي وسقب قبصانية أوكي حسن دير وايمد محكمة ديوي هذا نوحي قبطان بعد حسن دير إسماعيل نوحي قبطان مالي علماء ودينك أوكي محكمة دي مركي لو جاي ولا حكم مرك ولا قاضي مشي أنا دايق لك قف دوق عندي ما تقص مالي أصول سوا إحنا يقانا وابو صح أو قف ساتسفاير أو عندهم بيجلين أو باك جراوند في عيني هاي أو جناعسي فاينانشلي سكفي عن صح مركا يا هاي استهاد علمي ناق عدان أو قالة أو ميل ماشي دقنت أدرس كوشك أدرس حتى القومي قالوا مش شيء قاعد أدرس ها حرونت الدولة دي كانيسة لكن قرق هذا ما تغاند ومدي الحالة الشيء يعني المهاس أيضا ولقت كورسانيسة أو أيضا فيل بيقول شرتي المه أو فيل بلوجو شره مركا أدبشنك وين لقي جارد أنت انقف للصين iga jooji waa ku baraya yani barakallahu fiik marka ilmahi waa in laga gaar hadda oo looyara adag oo lacag xoog la ku bixiyo hadii la khidmayo barakallahu fiik walaashay markii ilmaha laga qaadanayo depression naqabtay صح صح داوود ديبريشن صح الحمد لله إلهي يسوع قاضو إلهي خير هالشيء قبل ما يسوي لنا شيء واجد نبكي قبل أقول مثلا إذا مدينة خير هالشيء سومالي مستوى كان أبوه مسكين كان دبع سر لا خير خصوصي هذا كان لا كل يبانو أخلاق عسول ما اللي سحاويه ما قبل تطلع كان إسكندافو ولكن مدينة ما عرف الله كعبس فيري حتى فيري قبلنا الصوماليات والله ترعى يقول شقطي والقبيل كيس كداي والبختي كيس كداي أدر أبو علي إن قبلنا أنا أدو شدان وقبل قرآنك حفظ السن وحي قاضي كوبك قرآنك أي كو قاضي ضلك مريكنك تاريخ وش كادر قرآنك معلومات قرآن مياه هيد محد يشتري إيشك يا ما عاد شيء كالنت كواد يا قرآنك شهادة لوكسي ما شاء الله معلومات قرآن نوضح لكن قرآنك وديس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبلها إني قرآنك عبد السنة قبلها إني محجبات كاها وكنت يعينهم قربها ولكن يا مسلم كاهو كمدان وحي قاضي كوبك قرآنك مقالة كولومبوس مسجد كنور وين مساجد يدا أي كوبك قرآنك قاضي وقبل قرآنك دقيسي سادو جدان لكن dadkii quraanka yaani dhigay gabdhihi waa kuwaana muxajabaadkii waa kuwaan ku dayaan qurbaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi waxde inna lillahi wa inna lillahi ma akhadha wala ilaahi musibadaha ka qaad ilaahi gaalada kaaga soo celiyo awlaadaada ilaahi subhanahu wa ta'ala farja kufru ilaahi subhanahu wa ta'ala qurbadaha ka qaad ilaahi subhanahu wa ta'ala muslimka aaba iyo hooyo allah kaaga dhigo ilaahi subhanahu wa ta'ala kaaga siddeed قالنا عاوة هي ستة قال نمر يس صنمك كوريني إلهي سبحانه وتعالى ولا ليها كاقص علين
رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحن كبرينا هو يوينك الصومالية قبلها الصومالية وملك استقضيعا إلهي سبحانه وتعالى هأهلي إلهي فرجها أفرو إلهي كربتها كغادو إلهي سبحانه وتعالى قوة قاتيسا أو سلعي أو سحريري أو أن قراعا أو أن قدين أو مارت أو أنك يقاتل يرفات كدلين أو ليبيا كوحي قبلها كوحيران ويلاشا كوحيران نيروبي كوا كوحيران كوا أردسوا كوا ساوث أفريقيا كوا غريق كوا سلعي كوا سحريري كوا صوماليا كوا سحريري كوا أمريكا يوروب كوا سحريري إلهي سبحانه وتعالى فرج خير قبل إلهي قبلها إنها أفرو وعلينا الصوماليين قبلنا الصوماليين أو ولا شيء يعني فرج الله أفرو أسود دعية خير الله يدسيه ولا ليال وعن دلنا يهي محاد مركب رلبات كعليه محاك كود عيد كود عي ويلكاغا مقعيس محاد ده لا محاد بحسي بلال سيد بلال بدو بحسي ويلكاغا ما شاء الله ما شاء الله محاد هذا مركب نمبر كاغا وشك سومالي وين 447 كفير سميش هذا درت نمبر كاغا وشك سومالي وين ملك استي جوجتو كل حريرين هكو عاويين جاليدو هكو عاويسو yes gabadha walaalayaal wadanka kan dhibaata ka jirta cultural shock baa ku dhacay dadkii deep depression baa ku dhacay gabadha daaway qaadatay daawadii ay qaadanaysay awgeed ayaa waxa la yiri systemka waxa ugu jirta deep depression ka awgis ma soo bilow numberka soo bilow 586447648 afsamaal ku sheeg marka waxa waaye 586 447 6 ku celi hadanaadir 586 وافراه ايه ايه ما شاء الله ولاشين سمسم جامع خليف ميوها سمسم خليف جامع او ناس ابنا waxay ahayd خليف جامع شبيل او يا 2019 انت والله ما شاء الله ورنت الله نحرسته إلهي هو نحرسته قبضان سوماليي سعوية سمسم خليف جامع شبيل هلكا كل انت أذكر يا الله نحرسته وقبضان سوماليات كونفورت قال كعي برحلي والصومالي وقبر صوماليات وساس وحنوش نكلية إن حسستان ناس حسستان قبضني كلنا يدنا قرن هاي بوساس هاي تنوع هذه كد ما هي كونفورت قال كعيو يبرح لين صومالي قبيل ملهن ملك استنوى يكس العدين إنا لله وإنا إليه راجعون كبدا ولا شينا برامبري أو سداد عرورة أيضا لقاقات سويدن هل كان كلنا إلهي وفرج وفر قربنا كقام هو يدا كينيا هو يوينك الصومالي ملك استيشوغان قربنا الله كقادم وولاشين سمسم أو إذن له ولا ليال إيسو الدعية ولا ليال إقرب استاغا ولا ليال إيهيلية ولا ليال هيغفر سننا المهيجي أو لقاقاتين إلهي اللهم هل بلغت اللهم فاشهد صومالي ويني وإذن قارسيي قبديني سمسم واتنا شليتو وعيد oo idin taala ayadana caawinteedin gabadhiini xamdi ayaduna waa idin taala oo ayaduna inaad kaalmaysaan oo garab istaagtaan oo hilisaan oo dhaqaale u aruurisaan oo meel dejisaan oo Allah raxmaanka aad gabdhihiina iyo dadkiina aad raadisaan ugu baqdaan waa samsam oo laga qaatay wiilkeedii 6 bilood ka hor haddana u baahan qof ilmihii yani fostera ama koriye ilmihii ama gurigiisa keensada ayaduna ay ku soo booqato intaasan kaga tagaynaa maxaa la adeergaclis jaaliyada iyo culumada diinka iyo masaajidiyadana waxaad leedahay walaalayaal ilaahay ka baqo oo ii hiliya khayr allah ku siiyo ugu dambayn nambarkaaga ku celi 447648586 khayr allah ku siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maskiinka alle oo idin leh intaas iyo nabadgelyo waa walaalkiin maskiinka alle oo idin leh حسبنا الله ونعم الوكيل رجع دلك جبية رجع نبدأ نوديدي رجع ماركتي 91 لون غنياله رجع نقحنية ولا ليالو دقالو مباهرين ولا ليالو نبض بهربنا ولا ليالو ودو تشدان ولا ليالو وضيع عني ولا ليالو والرفاضي ولا ليالو قبله اللومي ولا ليالو عرورتي اللومي ولا ليالو هشي إذن ما كلش علين والله إذن ما كلش علين صومالي مدأ أو هشيسة نك حكومة يا حكومة كي دورتها حكومة لكن كي أي دورته إن لقد ضمبي ولا أضيعه الله جان سما رمنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذلك الدقدق هلو يشيو هشيسك هلا صحيحه
doorashada ha la galo qofkii doona ha ku guulaysto nabad baan rabnaa u hiliya gabadha tan walaashiinni kale u hiliya gabdhaha Soomaaliyeed u tura dhallaanka u tura ciyaalka u tura odayaalka u tura ittaqullaha tabaaraka wa tacaala jaaliyadda qurbaha joogta ragga lacagaha meelay dhigaan waaye culamaa u diinka wallaahi maalinta qiyaama waa la idin weydiinaya wallaahi ubadka waa la idin weydiinaya wallaahi dhallaanka waa la idin weydiinaya gaar ahaan ragga masaajidyada North America iyo Yurub ku haysta wallaahi thumma wallaahi الله سبحانه وتعالى وإذن ويدينيا اللهم هل بلغت اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كوي لي يادر فرجنا الله كفر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا واتقنا قبل قرآن قد سنبات سيجعل الله بعد عسر يسرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي سبحانه وتعالى قربتك هذا ضاغت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج إذا بين يسرين لما تذكر ما تفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته